safiirka waddanka Mareykanka u fadhiyay Itoobiya Ambassador Nervin Mazinga oo aan wax ka weydiinay ujeedada ka dambeysay imaatinkiisa ayaa waxa uu ku jawaabay. It's a great opportunity to come to a part of Ethiopia that is benefiting from diplomacy, benefiting from the fruits of peace. وفرصة أدوين إن نمادو قيب كمده إثيوبيا تاسي وكفايديسانيسا دبلوماسية دا كنا نالونيسا مدها نبدقلية تانيا مركي لغاري هشيسكي لغو تشوشيني دقالكي حالده تاغنا يديغان كان waxaa ka muuqda deganaan iyo xasilooni waxaana ku aragnay deegaankan horumar dhaqaale iyo mid bulshadu aad u ballaaran magaalada Jigjiga waxaan ku aragnay horumar fiican maalgashiyo kala duwan oo la maalgashanayo dhismaha guryaha iyo warshadaha sektorka adeeg bixinta iyo teknoolajiyada waxaanan aaminsanahay in horumarkaasi laga hirgeliyay guud ahaan deegaanka waxaanan rabay in aan indhahayga ku soo arko waxyaabahan kala duwan waqtiga yar ee aan hayo shaqada safiirnimo meelo kala duwan oo dalka ayaan soo arkay sida deegaanka Canfarta deegaanka Amxaarada deegaanka Oromada iyo goobo kamid ah dhinaca koonfureed ee dalka aad iyo aad ayay muhiim igu ahayd in aan bilaabo imaatinka dhinaca bari ee dalka socdaalkayganina waa mid miradhal ah qiimo badanna noogu fadhiya waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqon doono xilliyo kala duwan. My trip has been very fruitful and worthwhile. I'm glad I came and I know I'll be back. Ambassador Mazinga ayaa waxaan wax ka weydiinay inay jiraan qorshayaal lagu taageerayo howlaha adkeysiga iyadoo la tixgelinayo nolosha bulshada Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeraleyda ah kuwaasi oo ay si weyn u saameeyeen isbeddelka cimilada waxa uu yiri. We take this question very, very seriously and we are working very intensively to invest in resiliency, the very issue that you point to. arrinta odhanaysa wax ka qabashada gegsiga bulshada aad iyo aad ayaan ugu xisaabtamaynaa oo aan u rabnaa in aan wax uga qabanno waxaan si khaas ah uga hawlgalaynaa wax ka qabashada arrinta dhisida gegsiga bulshada qaybtan dalka Itoobiya macnaha deegaanka Soomaalidu wuxuu ka soo gudbay ama soo maray abaar aad u daran xilliyadii ugu dambeysay waxaanay si aad ah u waxyeelaysay bulshada xoolo dhaqatada iyo bulshada kaleba laakiin waxaan soo aragnay in saameyntu aanay u darnayn sida abaartu u adkayd oo si fiican loo maareeyay adanka amniguna dhibaatooyinkii la soo maray way ka sii muuqdaan nabadgelyadu waa dhisida gegsiga bulshada nabadgelyaduna waxay ku siisaa xoogganaan iyo furfurnaan annaguna ka safaarad Mareykan ahaan waxaan maalgelinaynaa nabadgelyada waxaanan maalgelinaynaa deegaanka Soomaalida inta ugu badan waxaan soo marinaa maalgashiyada jaamacadda waxaan si ballaaran ula shaqeynaa cilmi baarayaasha dhanka xoolo dhaqatada si aan u xaqiijino mustaqbalka xoolo dhaqatada mustaqbalka maareynta xoolaha ee deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalka oo dhan tusaale ahaan haddaan soo qaadano deegaanka Canfarta waxaa la horumariyay xoolaha taasina waxay keentay dhismaha gegsiga bulshada waxaan aaminsanahay in cilmi baarayaashu ay shaqo wanaagsan ka qabanayaan horumarka bulshada deegaanka Soomaalida taasi waan aragnay imika in dhankaasi wax soo saarka xoolaha wax badan laga qabtay intaas oo maahi waxa muuqata in la sii wado horumarinta sektorka wax soo saarka xoolaha iyo dadka ku tiirsanba heer la gaarsiinayo gegsigooda inay adeegsadaan dhibaatooyinka isbeddelka cimilada kaga imanaya here in the Somali region. And I know that transformation will continue, making the industry and the people that depend on it more resilient against climate shocks. Safiirka ayaanu sidoo kale wax ka weydiinay in uu jiro qorshe safaarad ahaan loogu fidinayo gargaar dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan deegaanka waxa uu ku jawaabay. Despite the new prosperity that you and I have talked about already, there are IDPs. There are people who remain vulnerable to climate change, to drought, to floods. inkasta oo ay jiraan barwaaqooyinkaasi aan soo sheegnay haddana waxaa jira dad barakacyaal gudaha ah dad aad ugu nugul dhibaatooyinka isbeddelka cimilada abaaraha iyo sidoo kale daadasha ujeedada iyo dadaalada dawladda Mareykankuna waa sidii loo xaqiijin lahaa daryeelida dadka noocaasi ah si taasi loo xaqiijiyana waxaan si buuxda uga shaqaynaynaa arrimahaasi beesha caalamka CRS hay'adda cunnada adduunka iyo cid kaste oo hay'adahaasi kala shaqaysa sidii dadka taageerada u baahan u heli lahaayeen taageerada
tallaabadaasi waxaan weliba xoogga saaraynay in aan si degdeg ah u gaadhsiino taageerada gaar ahaan marka aan qaadanay bishii Noofembar ee sanadkii hore go'aanka odhanaya in dib loo bilaabo mucaawinada guud ahaan dalka oo dhan si loo xaqiijiyo in dhammaan dadka u baahan mucaawinadu ay helaan mucaawinadaasi taasi oo runtii waqti qaadanaysa maadaama uu waddanku yahay mid aad u ballaaran abaaraha soo noqnoqda cimilada xumaaday imika ma aha keliya deegaanka Soomaalida laakiin guud ahaan dalka oo dhan waa mid qof walba dhibaataysay annaguna ka safaarad ahaan waxaan ku dadaalaynaa in aan soo afjarno dhibaatooyinkaasi make reaching everyone a challenge, but we're working every day to make sure that that challenge is overcome. We know that Euro Embassy offers different exchange programs and scholarship opportunities like Mandela Washington Flu, MWF, IVLB, and Education USA to young and growing members. Yeah. We also know that the post-journalist communities do not have access to get those opportunities. waxaan ognahay in safaaradaadu ay bixiso barnaamijyo kala duwan oo wax isweydaarsi iyo fursado deeq waxbarasho sida Mandela Washington Flu, MWF, IVLB ee dhalinyarada waxaan kaloon ognahay in bulshada xoolo dhaqatada ah aysan fursad u helin in ay helaan fursadahaasi sababo kala duwan awgeed ma jiraan wax hindisa ah oo ka dhex jira safaaradda si loo hubiyo in si siman loo heli karo barnaamijyadan isweydaarsiga ah. We're speaking in English. But when we make sure, when we advertise access to these programs, we do it in all the major languages of Ethiopia, including Somali. imika tusaale ahaan waxaan ku hadlaynaa luuqadda Ingiriiska laakiin marka aan fursadahan aan soo dhajinayno ama xayeysiinayno waxaan ku soo dhajinnaa ama ku xayeysiinaa dhammaan luuqadaha ugu waaweyn ee dalka oo af Soomaaligu ku jiro waxaan ka sii daynaa TV-yada idaacadaha iyo baraha bulshada annagoo isticmaalayna luuqadda ay bulshadu sida ugu fudud u fahmayaan waxaan ku dadaali doonaa in aan si buuxda u xaqiijino shacabka xoolo dhaqatada bulshada ku dhaqan magaalooyinka barakacayaasha gudaha iyo bulshada kaleba in ay fursadahaasi wada heli karaan mana rabno in fursadahaasi in ay ka faa'iideystaan oo kaliya dad gaar ah balse waxaan rabnaa in cid walba ay fursad u hesho ka faa'iideysiga fursadahaasi aad sheegtay oo loo sinaado. We want everyone to have a chance, everyone to have an opportunity. And we will work intensively to make sure that pastoralists and everyone else here in the Somali region has access to these programs. What's your goal of supporting the development activities in the region as well as Ethiopia? waa maxay yoolkaaga ku qotoma in aad taageerto howlaha horumarineed ee deegaanka iyo sida oo kala dalka? It's a great question. So the goal we have for supporting development and humanitarian activities here in the Somali region are very similar to what we're doing throughout the country. waa su'aal wanaagsan qorshayaasha iyo hadafyada taageereed ee aan rabno in aan ku taageerno horumarka deegaanku waa mid la siman kuwa aan ku taageerno dalka intiisa kale waxaan rabnaa in aan taageerno dadka aanan samayno nolol sees adag bulsho gegsigeeda dhaqaale dhisan yahay oo noloshoodu horumar samaynayso si bulshada deegaanka Soomaalida iyo tan dalkuba ay isku filnaansho u gaaraan lafahooda u daryeelaan door muuqda ka qaataan dhaqaalaha suuqyada kale suuqyada dalka kobciyaan dhaqaalaha sameeyaan dakhliye ka soo gala lacagaha qalaad oo ugu dambeyn ay waddankan ka dhigaan mid dhaqaale ahaan dhisan oo adag waa ka hadafka aan Mareykan ahaan hiigsanayno waana mid aan had iyo habeen ka shaqayno sidii aan uga midho dhalin lahayn dhan waxaan ka shaqaynaa arrimaha bini'aadantinimada dhanka kale waxaan ka wadnaa horumarka qaybihiisa kala duwan waxyaabaha kale ee aan maanta soo arkay waxaa ka mid ahaa hay'adda lacagaha yaryar ee Soomaalida oo ka shaqaynaysa horumarinta suuqyada soo saarka xoolaha sidaasi si la mid ah annaguna waxaan ka shaqaynaynaa dhammaan sektarada kala duwan iyo arrimaha bulshada si aan dalkani uga caawino in uu horay u sii socdo annagoo la shaqaynayna bulshada deegaanka Soomaalida iyo bulshada guud ahaan dalkani Ethiopia. Humanitarian and development to help this country move forward, working with the people of the Somali region, working with the people of Ethiopia. Are there any plan in your embassy to support Somali mass media or journalistic capacity building, training and technology? danjira Masinga ma jiraan qorshe safaaradaada ka jira oo lagu taageerayo warbaahinta iyo teknolojiyadda ee tayeynta saxafiyiinta? Of course. So what we do around Ethiopia with journalists in all the regions and certainly Addis, we are working intensively to roll out programs that help
training against misinformation, disinformation, to strengthen the media environment here in Ethiopia. dabcan ha runtii shaqada aan ka qabanno saxaafadda dalka Itoobiya waa mid aan sidoo kale ka qabanno deegaanada dalka oo dhan waxaan si qoto dheer u diyaarinaa barnaamijyo tababar ah oo ka caawinaya bahda saxaafadda ka hortagga wararka khaldan warxuma tashiilka kuwaasi oo kobcinaya saaxadda saxaafadeed ee dalkan runtii wararka khaldani waxay caqabad ku yihiin warbaahinta Itoobiya warbaahinta dalkayga Mareykanka iyo guud ahaan caalamka oo dhan waxaan Itoobiya ku arkay saxaafad iftiimaysa sida idinka oo kale kuwa aad wada shaqaysaanba waxayna taasi ku tusinaysaa in mustaqbalka saxaafadda Itoobiya uu wanaagsan yahay annaguna waxaan maalgelinaynaa saxaafadahaasi waana sii wadaynaa maalgelintaasi because of people like you and people like your colleagues. We're investing in that and we will continue to do so. Thank you very much, Your Excellency, Ambassador Mazinga. If there is any point to you want to say before the end of our session. aad baad u mahadsan tahay haddii ay jirto arrin aad rabto inaad tidhaahdo ka hor dhammaadka fadhigeenna. You'll see me back here in the not too distant future, so get used to having conversations like this with me. And second, I am incredibly impressed, as I said at the outset. waad igu arki doontaan anoo ku soo noqnoqonaya deegaankan weliba wakhti aad u dhow waxaan aad ula dhacay fursadaha ballaaran ee ay nabadgelyadu u soo hoysay deegaankani Soomaalida annaguna waxaanu sii wadaynaa in aan maalgelino midhahaasi ka dhashay nabadgelyada waxaanan ku kalsoonahay in deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kale ee dalkuba ay si wada jir ah horay ugu socon doonaan sanadkani waxaa jira caqabado annaguba aan ognahay laakiin waxaan hubaa in Itoobiya ay ka gudbayso iyadoo ka tusaale qaadanaysa sidii uu deegaanka Soomaalidu uga soo gudbay dhibaatooyinkii iyo caqabadihii haystay ee uu soo maray ugu dambeyn aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin looking at the examples drawn from the Somali region. Thank you very much. Thank you.